Bilowga hore ee filimka, waxaan aragnaa meel keen ah oo ay joogaan nooleyaal shisheeye kuwaasoo dhulka u yimid inay ka qaataan geedo ay u baahnaayeen. Mid ka mid ah nooleyaashaas ayaa wuxuu soo aadayaa bannaanka si uu u soo qaado geedka, balse waxaa ku imaanaya rag baaritaan ku hayay nooleyaasha shisheeye. Balse nasiib darro, inta xaaladaasi lagu guda jiro, kooxdii kale ee la socotay noolaha waa ay baxayaan maadaama waqtigoodii uu dhacay. Nasiib wanaag, habeenkaasina noolihii waxa uu ka badbaadayaa raggii ciirsanayay. Dhinaca kale, waxaa nasisaa guri ay joogaan koox carruur ah oo halkaasi ku caweynayay. Mid ka mid ah carruurtaas ayaa bannaanka alaab ka soo doonaya moorada guriga ayuuna dhaqdhaqaaq ka dareemayaa. Markuu u soo dhowaadana waxa uu ku arkayaa wax uu la yaabo. Durba waxa uu ku soo laabanayaa gurigii isagoona dadka kale u sheegaya. Dhammaan qoyska iyo asxaabtana waxa ay soo baxayaan dhanka moorada, waxayna halkaas ku arkayaan noole qariib ah, raadkiisa iyo biisihii uu wiilka yar watay oo si xun loo cunay. Wiilkaas yarka oo lagu magacaabo Elliot habeenkaasi wax hurdo ah kama soo dhacayso, waxaana soo aadayaa dhanka iyo bannaanka, balse halkaasi waxa uu ku arkayaa noole shisheeye oo si la yaab leh u samaysan, waxaana ka soo cararayaa goobta. Maalinkii xigay, waxaan aragnaa Elliot oo soo aadaya keenta isagoona rajeynaya inuu dib u arko bahalkii, waxaana u daadinayaa macmacaan. Sidoo kalena wuxuu halkaas ku arkayaa nin baaritaan ku hayay isla noolaha. Habeenkii xigay, waxaan aragnaa Elliot oo hurda bannaanka maadaama uu ka soo xanaaqay qoyskiisa, balse waxa uu imaanaya noolihii uu arki jiray isagoona aad u cabsanaya. Waxaa kasoo bixi waynaya hadalka, balse noolahan wax dhibaato ah uma geysanayo, wuxuuna dib ugu soo celinayaa macmacaankiisii uu keenta ku soo daadiyay. Intaas kadib, Elliot waxa uu guriga ku soo xareysanayaa noolihii isagoona wax xabsi ah ka qabin. Wixii xigay markii la gaarana, Elliot waxa hooyadiisa u sheegayaa inuu xanuun dareemayo uusan aadi karin iskoolka. Dhammaan markii ay dadka guriga ka tagaana, Elliot waxa uu bilaabayaa inuu bahalkii kala baro alaabaha iyo sida loo isticmaalo. Isla markaasina waxa uu dareemayaa inay bahalka gaajo hayso, waxaana u soo bixinayaa cunto, balse bahalka cunnadaasi lama uusan qabsan, waxaana ku adkaanaysa inuu cuno. Nasiib darro, isla xilligaasi waxaa guriga soo gaaraya Elliot walaalkiisa ka weyn oo lagu magacaabo Mike. Elliotna isla markiiba wuxuu bilaabayaa inuu walaalkiisa u sheego bahalka uu guriga ku hayo, balse walaalkiisa kama aaminayo. Ilaa ugu dambeyn uu indhihiisa ku arko ayadoo laxdadaasi lagu jirana waxaa guriga soo gaaraysa walaashooda ugu yar. Ayadana aad ay u cabsanaysaa, waxayna bilaabaysaa inay meesha buuq ka kiciso. Goobtiina waxay isku beddelaysaa goob foodo ah. Xoogaa kadibna waxaa goobta imaanaysa hooyada, balse waxay ku dadaalayaan inaysan waxba arkin, iyadana waxba uma dareemayso. Isla markiina waxay bilaabayaan inay gabadha yar ka cabsiiyaan, iyagoona u sheegaya inay boombilaheeda ka qaadi doonaan hadday hooyo u sheegto. Maalintaas wixii ka dambeeyayna waxa ay bilaabayaan inay wax walba kala baraan noolihii. Gabadha yaraanta ah ayaa waxa ay siinaysaa ubax u muuqda mid sii dhimanayo, balse ubaxii dib ayuu u soo ifanayaa. Maalmihii xigana waxaan aragnaa Elliot oo iskoolka soo aadayo, balse noolihii waxa uu bilaabayaa inuu guriga qaso, isagoona firiijka cunto kala soo baxay, sidoo kalena eeyga cunto siinayo, balse wuxuu iska badinayaa cabitaanka enerjiga ah. Taasina waxay sababaysaa inuu wareero noolihii. Balse xoogaa kadib waxaa guriga imaanaysa hooyada iyo gabadha yar. Halkaasna waxaa joogay bahalkii, balse maamada kuma baraarugayso maadaama ay aad u mashquulsaneed. Gabadha yar oo cashir baranaysa ayaa wuxuu bilaabayaa noolihii inuu ka daba akhriyo casharka. Gabadhana maadaama ay aad u yareed, waxay bilaabaysaa hooyada inay u sheegtay inuu bahalka hadlayo, balse hooyada ma fahmayso. Dhinaca kale, Elliot markuu iskoolka ka yimaado waxa uu arkayaa gabadha yar oo qaabka ka beddeshay noolihii iyadoona u marisay make up. Sidoo kalena Elliot wuxuu halkaas ku arkayaa bahalka inuu sameeyay qalab la yaab leh. Qalabkaasina wuxuu ahaa mid uu fariin ugu dirayo meelihii uu ka yimaaday, iyagana waxay bilaabayaan inay ka caawiyaan samaynta qalabkaasi. Inta dhacdadaas lagu guda jirana, Elliot ayaa waxa uu ku dhaawacmayaa mid ka mid ah alaabta, balse isla markiiba bahalkii ayaa wuxuu bilaabayaa inuu ka baabi'iyo dhaawacii, isagoona keliya fartiisa ka saarayo. Markii la gaaro galabtiina, waxaan aragnaa qoyska oo isku diyaarinayo Hollywoodka. Carruurtan waxa ay hore u soo wadanayaan noolihii saaxiibkooda ahaa. Si gaar ah, Elliot iyo noolihii ayaa waxay isku soo raacayaan keenta, weliba isagoo baaskiilka aad u kaxeynaya. Noolihii ayaa ka caawinaya inuu duulo. Habeenkaasna, Elliot iyo noolaha waxay diyaarinayaan systemkii ay sameeyeen, iyagoona isku dayaya inay fariin u diraan meeshii uu ka yimaado bahalka, balse nasiib darro, qalabka ma shaqeynayo. Iyagana halkaas ay waxay bilaabayaan inay ku sugaan inta uu ka shaqeynayo. Dhinaca kale, waxaan aragnaa hooyada oo u soo baxday si ay u soo raadisay wiilkeeda, balse markii ay guriga ka soo baxdo waxaa guriga u daba-mareynaya rag aanan la aqoonin. Waxaan ogaanaynaa in ay dowladda ku raad joogto qoyska noolahaas dartiisa. Subaxii xigana, waxaan aragnaa Elliot oo hurdada ka soo kacay, weliba isla keentii. Waxa uuna meesha ka weynayaa saaxiibkiisa, waxaana u qaadanayaa inuu baxay, isagoona murugsan ayaa wuxuu soo aadayaa guriga. Markuu uu maalinkaasi guriga yimaado, hooyadiisa oo aad u raadinaysa, isagana wuxuu bilaabayaa walaalkiisa inuu u sheego inuu baxay noolihii, balse Mike ayaa soo aadaya goobtii, waxa uuna raadinayaa noolihii, isagoona aaminsanaa inuusan weli bixin noolihii. Siduu u raadinayana, ugu dambeyn waxa uu arkayaa noolihii oo xaalad halis ah ku jiro. Noolahana midabkiisu waa uu isbedelay maadaama habeenkaasi oo dhan meel biyo ah uu ku jiray. Mike ayaa wuxuu bilaabayaa inuu guriga keeno noolihii oo halis ku jiro. Ayagana waxay arrinka la wadaagayaan hooyadood, waxa ayna tusayaan bahalkii, waxaana isla markiiba goobta imaanaya rag ku labisan dharka dadka hawada ka shaqeeya. Isla markiina raggii waxay bilaabayaan guriga inay isku weer ka qabtaan, iyagoona bilaabay guriga iyo hareerihiisa inay wada bac ka dhigaan, iyadoona guriga loo diiday inay soo gashaan neef shisheeye maadaama bahalka xaaladiisa ay aad halis u ahayd. Isla markiina
bahalkii iyo Elliot ayaa waxaa lasoo saarayaa saalada si xaaladooda loo badbaadiyo maadaama bahalka iyo Elliot ay isla falgaleen. Isku day dheer kadib waxaan aragnaa ubixii noolaha oo sii dhimanaya. Dhammaan dhakhaatiirtii iyo dadkii meesha joogana waxay ka niyad jabayaan inuu bahalkan badbaadiyaan maadaama ay badbaadin waayeen. Runtiina waxay u ekeed noolahani inuu sii dhimanayo maadaama xaalad aad u halis badan uu ku jiray. isla markiina bahalka waxaa lagu ridayaa qalab lagu talagalay meydkiisa. Dhammaan dadkiina waxay bilaabayaan inay goobta kala tagaan. Elliotna wuxuu bilaabayaa inuu macsalaameeyo saaxiibkiisa, balse markuu kasoo tago waxa uu arkayaa ubixiisii oo dib u soo cifanayo. Isagana isla xilligaas wuxuu dareemayaa bahalkii inuu dib u soo kacay, isagoona usoo laabanayo wuxuuna arkayaa noolihii oo iftiimayo. Isagana wuxuu xaqiisanayaa inuu noolihii dib u soo kacay, wuxuuna bilaabayaa inuu laabta geliyo, balse nasiib daro isla markiiba waxaa goobta soo galaysa dhakhaatiirtii. Elliotna isla markiiba wuxuu bilaabayaa inuu bahalkii qariyo, isagoona u muujinayo mid meyd ah oo dhintay, maadaama haddii raggan ay ogaadaan inuu nool yahay ay qaadanayaan. Elliot markuu meesha kasoo baxo wuxuu bilaabayaa walaalkiisa Kevin inuu u sheegay inuu bahalkii weli nool yahay. Isla markiina labadooda waxay bilaabayaan inay soo fuulaan gaarigii la saaray noolaha meydkiisa, waxayna bilaabayaan inay halkaas kala baxsadaan gaariga, balse gaariga waxaa gadaal kaga dhigneed bac kuwaasi oo saarnaayeen rag ka mid ah raggii. Balse Elliot ayaa wuxuu bilaabayaa inuu xariga u jaro bacdii, raggiina waxay ku dhacayaan laamiga. Sidii u socdeen ugu dambeyn gaariga ayaa wuxuu ku ciloobayaa meel wada ah, balse nasiib wanaag waxaa meesha ku sugaya asxaabtooda oo halkaas baaskiilo ugu waday. Dhammaantoodiina waxay bilaabayaan in halkaas baaskiil uga baxsadaan iyagoo noolihii waday, waxaana soo daba cirsanayay boolis tiro badan. Booliska waxay dhammaan dadaalkooda isku geynayaan si ay u soo qabtaan carruurtaasi. Carruurtana waxay ahaayeen kuwo marba meel ka baxayay ilaa ugu dambeyn ay dhexda u istaagaan booliskii, balse noolihii ayaa wuxuu bilaabayaa dhammaan baaskiiladooda inuu hawada geeyo, ayagana waxay ku soconayaan dhanka iyo cirka. Sidii hawada ugu socdeen carruurtoodana ugu dambeyn waxay imaanayaan goobtii u yaalay systemkii hadda ka hor ay sameeyeen. Isku day dheer iyo dadaal kadib noolihii waxaa u suurtagelaysa inuu ka shaqaysiiyo qalabkii, wuxuuna bilaabayaa inuu fariin u diro noolayaashiisii. Ugu dambeynna waxaa goobta soo gaarayaan noolayaashii shisheeye iyagoona wata diyaaradooda. Noolihii wuxuu bilaabayaa inuu mid mid u macsalaameeyo dhammaan asxaabtiisii, wuxuuna u mahadcelinayaa Elliot isagoona laabta gelinayo. Halkaasina waxaa joogtay Elliot hooyadiisa iyo mid ka mid ah hogaamiyaashii ciidankii hawada ee haddeertaan soo bursanayay. Isagana halkaas ayuu iska taagnaa waanu daawanayay. Ugu dambeynna bahalkii wuxuu qaadanayaa ubixii, waxaan ogaanaynaa waxa uu dhulka u yimaaday inay ahaayeen ubaxaas uu raadinayo. ugu dambeynna waa uu helay. Noolihiina wuxuu bilaabayaa inuu diyaaradda fuulo iyagoona halkaas iskaga tegayaan. Halkaasina waxaa kusoo dhammaanaya filimkan xiisaha badan kaasi oo lagu magacaabo E.T. Fadlan haddii aad ka heshay filimkan ha iloobin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kale channelkeena kusoo biirto oo subscribe dhahto.